College-ka Tuwin ee magaalada Cerigabo ayaa munaasabad qalinjabina u qabtay dufcadii labaad iyo saddexaad oo ka kala qalinjabiyay fagaare ka hadalka iyo cilmiga IT-ga waxaana uu college-ku soo kordhiyay oo halkaasi ku shaaciyay in qaybta caafimaadka dugsigaasi laga baran karo hadda uu soo kordhiyay waxaana munaasabadan oo ka qabsoontay hoolka martisoor ka soo qayb galay maayir ku-xigeenka degmada Cerigabo xildhibaano waalidiin macallimiin madax dhaqameed iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Shaafici Cilmi Ismaaciil oo ku hadlayay afka maamulka Twins College iyo Dr. Amuun Xasan Ismaaciil oo faahfaahisay koorsooyinka ay bixinayaan ee qaybta caafimaadka dhamaanteen waxaanu isugu nimid maanta xaflad laba dufcadood oo qalin jabinaya oo Twins College ka baxaya ma sha Allah Department of Computer bay ka baxayaan qaybta computerka iyo public speaking ama fagaara ka hadalka waxa loo yaqaano Twins College marka laga hadlayo muddo aad u kooban bay aasaasnayd iminka oo magaalada Cerigabo ay ku taalay muddada wax weyn bay ku soo kordhisay magaalada Cerigabo iyo guud ahaan gobolkaba aqoon fiican iyo isbedel fiican bay ardayda Cerigabo ku nool guud ahaan u horseeday college-keenu maalinba isbedel weyn ayuu ku talaabsanay sideen ognahay markii ugu horeysay waxa laga soo bilaabay Department of English qaybta English ayaa laga soo bilaabay qaybta English muddo ayay jirtay English-ta uu macallinku bixinayay macallin xariir ilaahay aqoonta ha u barakeeyo English magaalada ka duwan iyo nidaam cusub oo magaalada markii ugu horeysay la keenay ayuu keenay taasoo ardayda lagu tababarayay English-ta ay dhiganayaan inay noqoto tii lagu hadlayay ardaygu inuu hadli karo oo dadka luqadda u dhashay fahmi karo oo u dhageysan karo oo cid walba aan af Soomaali aqoon oo English ku hadasho wala macaamilo karo ayaa loo tababarayay college-ku uu sii balaadhay macallimiin fara badan buu yeeshay qaybo fara badan buu yeeshay waxa soo korodhayna macallimiin tayadoodu fiican tahay baa la keenay qaar kalena insha Allah waanu soo wadnaa waxaanu rajaynaynaa inay noqoto goobta ugu fiican ee arday computer dhigta oo ka soo baxo qaybta caafimaadka ayaan college-ka isna ku soo kordhinay muddo 2 bilood imika jirtay kuliyada caafimaadka waxa ka mid ah fakalada aan dhigi doono nursing nutrition iyo waliba faculties of pharmacology sidoo kalena waxaan dhigi doonaa obstetric guna waxa sidoo kale waxaan dhigi doonaa pediatric ama qaybta carruurta sidoo kale waxaan ku dhigi doonaa course loo yaqaano pathology guna waxa weeye studies of disease waxyaalaha soo dhan baan dhigaynaa dhammaantiin aad baad u mahadsantahay qaar ka mid ah ardayda ayaa halkaasi ka soo jeediyay cilmigii ay barteen iyagoo uga mahad celiyay maamulka iyo macallimiinta cilmigii ay soo bareen iyo waliba waalidiintii ku soo tacabtay saddexda wiiga waxaan baranaynay ama nala ku tababariyay sidii bulsho looga hor hadli karo ama wax looga soo hor jeedin karo runtii waxaana la baray sidii aan dad bulsho macallimiin iyo arday iyo cabashada iyada naftaba aan ugu gudbin lahayn anigu waxaan ahay arday ka tirsan Twins College waxaana dhigtaa public speaking ka I try to answer this question is I can say education is key of life. Education is the power. Education helps the person was the right and was the wrong. waxaan leeyahay dhalinyaro ma aha aqoontu koofiyad amaanta qaatay ama sikoolaad soo xidhatay laakiin si aqoontu waa tii wax ka bedesha waa tii gobolkaaga wax ka bedesha waa tii meeshaad ku nooshahay wax ka bedesha waa tii awlaadaada gurigaaga wax ka bedesha geysay waxbarasho tayaysan oo tusaaleyn iyo wax sheeg tarbiyadu ku dheehan tahay haddii aan ku tilmaamo mid aad ku tagaadaysiyo Twins hor u gaadho tilmaantana hamoogaan darajiye karaamiyo marna deeq ilaahay marna duubka sharaftiyo kurayba kuraashe qof alla ku dayday damacla kuraasida dadaalo baa ku soo qofle qolfadiin yeesho damqashiya ahtaayadu qalku ilaashe kuma sidinta macsana ligta kun ilan tabtaan mata joogna iyo Twins waliga sare tacliin waliga lahow talaabso hore u soco sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi xildhibaano madax dhaqameed waalidiin macallimiin arday hore iyo maayir ku-xigeenka degmada Cerigabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed bariga yagii aan iskuul ku jiro waxaan garanayaa fasalka yaga 2 gabdhood oo qura ayaa nala dhigan jiray intayda ka wiilal baan ahayn ma sha Allah maanta inta soo gabdhood baa fadhiya waxay kale yihiin qofka wax bartay iyo qofka kale maalin iyo habeen
ardayda waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa laakiinse waa sii kordhinaysaan haddii aan la yidhaahdo halkaa ha kaga hadhina wax walba inaad cilmi u yeelataa waa muhiim waxaa jiray nin luuqadda kolley waxaa ka baxa college-ka luuqadda ingiliishta kombiyuutarka iyo caafimaadka anigu waa hobbigayga waan jeclahay waana jeclahay insha Allah billahi kariim aan ku soo biiro qaybta college-ka aan qaybta department-ka caafimaadka soo galo anaan ugu horreynaayo inta galaysa insha Allah billahi kariim ardayda qalin jabisay cilmiguna yuu noqon maalin walba horta waxbaa la baranayaa laakiin nin shiikha isaguna meel buu ka fatwoon jiro waxbaa la weydiin jiray dabadeedna kitaabun buu haysan jiray maalinta dambe isagoo meel maraya oo aan fadhiyin oo halkiisii joogin loo yimi markaasaa lagu yidhi halkaas su'aasha noo sheeg markaasuu la wajadtu kitaabii la aftaytu haddaan kitaabkayga haysan lahaa waan idin fatwoon lahaa marka waxaan idin leeyahay cilmigu yuu noqon kanaad kitaabka ku sidataane mid niyadda iyo qalbiga iyo caqligiina ku jira mar walba ha ahaado madhago markii hore saan ahaa ama hadda saan ahay markii hore aan public speaker aanan baran ama kuliyadda aanan ka qayb galin waxaan ahaa arday cabsoon jiray ama markaan haddaan doono haddana waxaan ka qayb gali jiray xaflado oo meelahaas bulsho badan baan u tegi jiray dareenna iga guuxi jiray laakiin awood aan ku hadlo baanan haysan oo public speaking baanan ka dhisnayn waan cabsoon jiray dareenkaas iga guuxiyay laakiin awood aan ku soo bandhigo maan haysan waxaan iga caawiya cabsidii maadada loo yaqaan public speaking oo ugu horeeyo macallin Mustafa Abdullaahi Daahir Mustafa Xariir oo runtii juhdi iyo dadaal badan geliya inay soo saaraan mar kasta arday ku hubaysan aqoon oo u soo baxda bulshada reer Ceergaabo oo aan horeysana ku wada shaqaynaynay intii dambena aan xogaal u ahaa aan ku bogaadinayo doonayna in macallinka taal lagu mahadnaqo walibana mar sacabka loogu tumo cilmiga furiisi baa la siiyay runtii waxa weeye ma taqaanaa inaad ka kordhisaan oo cilmiga aqoonta dhinacay tahay mid diineed iyo mid maadiba ay noqotaan inaad kordhisataan runtii aad iyo aad ayuu mahadsan yahay college-ku iyo sida fiican u dadaalayo macallin maamulaha macallin Mustafa Xariir aad iyo aad baad u mahadsantiin aad baan u soo dhaweynaa aqoonta iyo waxbarashada inay soo baranayaan gobolkeena Sanaag hadeer waxa lagu jiraa xilligii waxbarashada waa la dhaafay xilligii qoriga iyo dagaalka iyo xumaanta lagu jiray hadeer aqoon baa lagu wada baranayaa aad baan u soo dhaweynaa college-kan iyo ardayda uu soo saaray quruxda badan macallinka waxaan leenahay insha Allah noo sii wad oo noo sii kordhi aadna waad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadba si fiican baan u garanayaa macallin Xariir iyo macallin Mustafa labadaba iyo macallimiinta kale meesha joogtaba quality-gooda insha Allah iyo sida fiican ee ay horumarka ay gobolka degmada Ceergaabo inoo keeneen aad baan uga mahad celinayaa waqtigu waa iska aamin maxad college-kan Tunis College-na waxaan leeyahay aad baad mahadsan tahay ubaxa aad soo saartay iyo ardaydaas aad ku tacabtay jasaakumullahu khayran ka golo deegaan ahaan ama degmo hoose ahaanna waxaa naga go'an dhammaan inaan isgarab taagno dhallinyarada iyo bahda waxbarashada gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyinkoodii lagu guddoonsiiyey ardayda ka qalin jabisay fagaara ka hadalka iyo cilmiga IT-ga ee college-ka Twins College ee magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Ilsar